bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halka aad naga daawanaysaan waa janalka xogta midiya waxa aad ku soo dhawaataan waraysi gaar ah oo aan diiradda ku saari doono khilaafka soo cusboonaanaya ee u dhaxeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble saameyn intee le'eg ayuu ku yeelan karaa doorashada Soomaaliya waraysigan ayaa daawadayaal idinku soo dusin doona xogaha arrimahaasi ku aadan sidoo kale waxaan waraysigan ku soo qaadan doonaa dhulboobka lagu eedeeyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo sharci ahaan qaabka uu taliyaha ciidamada badda Soomaaliya ugu aflagaadeeyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble barnaamijka waxaa igala qayb galaya Dr. Faqad oo kamid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed isaga ayaana su'aalo dhowr ah wax ka weydiin doona oo ku aadan khilaafka cusub ee soo kala dhaxgalaya xafiisyada ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha hayeeshee waraysiga intaanan guda gelin waxaan ka codsanayaa daawade in aad muuqaalkan like saarto la wadaagto asxaabtaada adigoo subscribe inoo saaraya channelka furanaya gambalaalka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino sidoo kale daawade muuqaalka qaybtiisa hoose ee farada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaag markaana su'aasha ugu horeysa ee aan hor dhigay Dr. Faqad ayaana ahayd qaabka uu iminka u soo cusboonaanayo khilaafka u dhaxeeya ra'iisul wasaare Roble iyo madaxweyne Farmaajo niyow anigu waxaan u arkaa maaragtay khilaafkan inuu yahay wax maaragtay la abuuray oo dhinaca Farmaajo laga abuurayo ayaan anigu u arkaa oo maaragtay Farmaajo markuu doorashada qabo waayay doorashadii ninkii loo xilsaarna uu lugaha kala bixi waayay in maaragtay hadba meel uu khilaaf ka bitaacinayo maaragtay uu maaragtay isaga rafanayo extension iyo maaragtay aan soo laabto xooga iyo waxaasuu ku riyoonaya waxaad moodaa maaragtay isaga iyo kuwa la taliyaba inaysan ahayn dad sharciyadana aqoon u leh qaanuunka dalka soomaalidana aan kala aqoon dadka reer muqdishona waxay yihiin aan aqoon oo dulqaadkooda badan dabcan ayay waxay u qaateen inay maaragtay aysan dad wax fahmay ahayn marka waxa weeye aad iyo aad maaragtay Farmaajo ayaa khilaafkaas ka mas'uula wuxuu sameeyay askartii ayuu wuxuu ku soo diray maaragtay ra'iisul wasaarihi warigii adduunka intaan joogo ma ana arkin nin askariya oo ra'iisul wasaare eedanaya iyo madaxweyne waa wax cusub dhaqamada horta uu Farmaajo noo keenay iyo kooxdiisu waxyaabahaas oo kala kamid ah xagga ethicalka akhlaaqda xataa fiiri waa akhlaaq daro waxay inta darajada markiiba laga qaado la xiro la xukumo ilaa dhowr iyo 10 sano ayaa horta loo baahna laakiin waxa weeye waxba la isku kabaya wuxuu waa maaragtay iyo kala daadan baa leeyahay waxa deerba meel si fiican isku haystaan laakiin waxa la yaabay oo caalamka la yaabo anagu aan la yaabana askari ra'iisul wasaarihi dalka eedeynaya oo haddana kiiskii markii la baaray la waayay meesha yaa degan saraakiil degan oo gooba kamid ah gooba asaga cadeeyo bashir goobe asaga degan marka ra'iisul wasaare ayaa lagu eedeynaya marka Farmaajo ka dambeeyay haddana waxa soo dhan oo qulubka asaga wada waxa weeye marka asaga aabaleeda asaga eeda sii badsanay ka dhaxgale ra'iisul wasaaraha hadii qalad lagu helo ama dhul boob lagu soo eedeeyo maxaa diidaya in qaladkaasi ra'iisul wasaaraha lagu soo oogo isla markaasina hadii ay wax ka jiraan la horgeeyo maxkamadii sharciga ninka ma weyna sharciga wax walba ka sareeya laakiin waaba la soo baaray sidaan ognahay guddiga loo xil saaray oo Farmaajo in adeerkiisu ku jiro odagay bixi waana soo waayeen wixii lagu eedeynay ra'iisul wasaaraha kadibna arrintii Farmaajo ay yiri la baafin ee maaragtay arrinta shufka dhaha saasayna uga aamuseen marka qof sharciga ka weyn ma jiro laakiin waxa cajiiba in askariya inuu madaxdii soo dalka eeday waligeena ma ana arag waxa weeye akhlaaq darrada meesha ciidamada Soomaaliya ay ka marayaan ayaa aad iyo aad loo yaab taasna waxa weeye waxay ku habbooneen maaragtay talaabo degdeg ah in la qaado laakiin kulli waxaan is leeyahay ra'iisul wasaaruhu waxa uu xeerinayaa sida laftigiisu hawlo badan u yaala marka waxa soo dhan Farmaajo ka dambeeya waaya marka khilaafkan hadda soo kala dhaxgalay ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kale madaxweynaha muxuu saameyn ah oo u geysan karaa ay kula tahay doorashadii socotay oo hakad fara badan uu ku yimid jadwal fara badan oo la soo saarayna dib u dhac uu ku yimid horta doorashadaasi waa doorasho daldalan weeye waa la daldelay markeedii hore Farmaajo daldalo 4 sano inuu soo dhisaa loo baahnaa
wuu diiday inuu soo dhiso. haddana hal sano uu joogaa, shan sano ayaa farmaajo madaxtooyada ku jira. horta wax doorasho la yidhaha ma dhacayso. tii aqalkiisana xaaraan ay ahayd inteeda badan, midda aqalka hoosena maba dhacayso, waana xaaraan. horta doorasho halkaa ka bix. waxaa soo haray heshiis dambe oo dhex mara maaragtay Rooble iyo farmaajona ma dhacayo. waa habeenkii xalay ay taga wey. waxa kaliya oo loo diyaar yahay, maadaama aqlaaq xumadaas uu ku darsaday maaragtay oo ciidamada uu ku beerayo, oo maaragtay uusan madaxweyne ahayn, uusan sharciyad ku joogin wadanka, oo saas wadanka u fawdanayo, oo magaalada caasimada ah ee Soomaaliya dadka ugu badnaa ay deganaayeen uu joogo, oo maaragtay waxaas uu kacayo. waxa kaliya oo loo diyaar yahay farmaajo in laga saaro madaxtooyada, lana qabto gacanta lagu dhigo, iyo Fahad Yaasiin ayaa loo diyaar yahay. dadku saasay diyaar u yihiin Soomaaliyeed, dadka reer Muqdisho, dadka reer Puntland, intuba diyaar waxay u yihiin gacanta in lagu dhigo farmaajo ayay diyaar u yihiin. wax kale oo go-aan kale oo yaalla ma lahan. farmaajo dalkan siima joogi karo, fawdana kuma samayn karo. dadkana maaragtay waa ninka ugu liita, waa ninka ugu xooga yar. qabiil hadduu isticmaalna waa uu qabiilkiisu waxba kama ahan maaragtay Soomaaliya. intaasi oo idilo madaxweynaha ku eedeynaysa anaga cadeemo uma heno, laakiin waxaa rabaa madaxweynuhu waa madaxweynihii sharciga ahaa ee dalka. muddo xileyntiisu unbaa dhamaatay, oo doorashadii dalka ilaa ay ka dhacdo waa madaxweynihii dalka. soo ma mudna in madaxweynaha lagu ammaano waxqabadkii oo 4 sano ee lasoo dhaafay uu dalkan ka sameeyay, isla markaasina loo hambaliyo oo weliba loo tahniyadeeyo. horta aad baan uga xumaa inaad tiraahdo waa madaxweynihii Soomaaliya oo sharci. madaxweyne sharci ma aha. waa dhacay mandatekiisu. Xasan Sheikh iyo Shariif oo maanta la mid yahay. waxa lagu ammaanayaa ma waxaan ku ammaanaa 15 wiil oo u diray Eritrea oo 500 iyo 5,000 iyo intaas ay ku dhimatay maaragtay Tigreega dagaalkeeda miyaan ku ammaanaa? ma qaraxiisa oo baan ku ammaanaa? ma waxaan ku ammaanaa wixii ka dhacay Baydhabo? ma waxaan ku ammaanaa qaraxii ka dhacay Ex Control? ma waxaan ku ammaanaa Ikraan Tahliil Maqnaasheed? madaxweynuhu sameeyeen aan arkeen oo muuqata Soomaa wuxuu qabtay ii sheeg hadaraadu adaan ku weydiinaya. hal wado uu dhisay ama hal maaragtay geed talaal oo xamar uu ka muday ii sheeg. dadka abaaro wayso baqbaqtin ay gala jooga waa kuwa ciyaalka TikTok u gurmanaye. hal wax uu qabtay oo horumar oo development haddaad ii sheegto, de waxa weeye aniga markaas waa ka xaal siinaya. laakiin adeer waxaan jirinayaa isu sheegin. waxaan ku xaal marinaynaa ama aan ugu hambaliyeynaynaa dadku waxa suuqa miya ma loogu hambaliyeynayo. dadkiina waa loo haystaa. guud ahaan daawadayaal waa inaga intaa waraysigii aan diradda ku saaraynay khilaafka u dhexeeya ra'iisul wasaare Rooble iyo madaxweyne Farmaajo. haddii aad daawatay muuqaalkan like saar, subscribe inoo sar channelka Furagan Balaalka si durbadii baad u heshay muuqaaladan halkan soo gelino. tan iyo waraysi noocan oo kale inta dib isugu kulmi doonana sidaas iyo nabadgelyo.